السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. walaalaha qaaliga ah waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan intay u wacan tahay rabbi ha u siyaadiyo kuwa ay ka jajaban tahayna alla waxaan uga baryaynaa in uu sida ay jecel yihiin oo khayr u ah waqti dhow yeelo biidnillaahi alkariim. maanta waxaan baran doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo 3 dabeecadood oo lagu garto dadka aan aadka u aqli badnayn. waa dadka yara joogta ah waxay ismoodaan inay dad taaf oo aqli badan oo smart ay yihiin, laakiin dadkan siday ismoodayaan way ka duwan yihiin. 3dan calaamadood marka qofka isku raacaan waxaad ogaataa qofkaas bool muhiim ah ka maqan. afeefir haddaan hordhigo qodobadan 3 aan ka hadli rabo waa wax fikir lagu cabiray. haddii 2 ama mid ama 3 baad isku aragto macnaheeda ma ahan inaad tahay doqon iyo nacas foofo. waxaad tahay qof wanaagsan. waxaan ugu talagalnay in waxyaabaha qofka dib u dhiga ku sameynayo uu ogaado si uu u joojiyo ee uguma talagelin in aan dad ku niyad jabiyo ama aan ku beegsado qaar ka mid ah bulshada. muhiimadda aan ka leenahay waa in adiga aad is ogaataa calaamadahan ma leedahay mise ma lihid. haddii aad leedahayna waa inaad joojisaa sababtoo ah wax faa'iido ah kuma lahan. calaamadda ugu horreysa aad ku ogaan karto inuusan aqligaaga kugu filnayn inaad tahay qof jiko ka ah waa qofka oo hal ficil ku celceliya asagoo ka filaya natiijooyin kala duwan inay kasoo bixi doonaan. tusaale ahaan, qof baa waxadayo waa la xirayaa markay muddada usoo dhammaato haddana wuxuu ku dhiiranayaa inuu mar kale waxado. waa isla ficilkii. wiil baa wuxuu baranayaa gabar, way wada sheekaysanayaan. wixii yaraay uu tabcanaya waxaa laga yaabaa inay kasii cunayso, waqtigay ka dhammaynaysaa, hadhow xariif kale iska raacaysaa. tii markay tagto uu ogaado mid kaluu baranayaa, haddana wuu la sheekaysanayaa. taasna sidii oo kale ayay ku samaynaysaa. hadhow marka waxaad maqlaysaa wiilkii hebel ahaa gabar baa dhacday oo tukalaa sidaa iyo sidaa ku samaysayoo wiilkan sooma dhihi karin asagaa dhugtalaa ilaan isla ficilkii ayuu ka filayaa in natiijooyin kala duwan ay kasoo baxaane. gabdhahana waa la midoo waxaad maqlaysaa gabadhii ninbaa hoteel geeyey oo gabadhii heblaaye ahayd baa la dhibaateeyey. haddana bilooyin kadib waxaa laga yaabaa in isla wixii oo kale haddana gabadhii ay mar kale ka cabato ama laga sheego. qofka wax markay ku dhacaan waa inuu cashir ku qaataa. waxaa la dhahaa qof aqli leh god 2 jeer lagama qaniino, dab ninkii ku gubtaa dambaskiisa ka cararo. yacni mahmaayahaas waxay ku baxeen qofka in uusan 2 jeer hal ficil oo uu ku dhibtooday ku noqnoqonin. calaamadda labaad ee aad ku ogaan karto in aadan cuslayn waa qofka oo ismoodo inuu wax walba yaqaano, in wax loo sheego ama wax la baro, wax la fahansiiyo iskala weyn. tusaale ahaan, dad baa waxaad la gelaysaa sheer oo waxbaad isku darsanaysaan, business baad samaysanaysaan. qofkan marka dadka asiga ku ehelka ama dadka markay wax u sheegaan ay ku dhahaan dadka markay wax isku darsadaan waxaas dhici karo, wuu ka hor dhacayaa. wuxuu dhahay karo waan garanayaa haa si fiican baan u aqaana. wixii loo sheegi lahaaba wuu ka hor istaagayaa dadka. taasna waa isla weyninkiiso waxaa laga yaabaa wax inuusan aqoon u lahayn, sida hadhow percentage-ka loo kala qaato, sida dadka markaad wax ku darsato yacni lafahaaga loo ilaashado oo wixii meeshaas aad gelisay inaad caddayso la iskugu dayo. ugu dambeyn waxaa laga yaabaa hadhow in lagu dhaho ganacsiga wuu kacay sidaana wax dhaceen oo lacagtiisi meesha ay ku khasaarto, dadkii kalena ay mar hore lafahoodii baxsadeen. qofna keligiis aqoon dhammaystiran ma haysto. adiga inbaa taqaanaa, qofkaas kalena inbuu yaqaanaa. qof walba adduunka joogana waa arday. waa in marka aada dhihin aniga waan garanayaa, aniga waxaas waan aqaanaa. baro wax walba oo kugu cusub. wuxuu yidhi nabi khadar nabiyullaahi muuse markuu u imaaday si uu cilmi u baro, ilaahay cilmigiisa iyo aqoontiisa waa sida badoo kale. qof kastoo naga midana wuxuu yaqaanaa wax yar oo dhibic ah. marka adiga tiftaada dhibicdaada ama droobkaaga meel hala taagnaanin, dadka kale tiftiftooda ka baro, markaas ayay aqoontaadu sii kordhi doontaaye. lambarka 3 waa qofka wax walba aamina asagoon wax baaritaan ah sameynin. tusaale ahaan, waxaad aragtay kareem la xayeysiinayo, waad aragtay kareemkii baad iska soo gadatay oo waad marsatay. markaas waxaad aragtay maqaarkii oo ku fiiqmaayo, korkii oo ku dhiig rooray, finan kaa soo baxay. waxaasoo dhan maxaa kuu keenay degdegaaga wax walbaad aamintaa. kareemkan magaciisa waxaad ku qori kartaa google-ka, ma la aqoonsan yahay,
maxuu ka samaysan yahay, maxaa side effect uu keeni karaa. waxaa la mid ah qofka markuu xanuunsado oo isbitaal tago daawooyinka la soo siiyo waa inuusan iska laqlaqini marka hore uu iska fiiriyaa, sababtoo ah wax walba maanta ganacsi bay noqdeen. farmashiyaha ruux lacagtoona iska furanaya macnaheeda maahan in qofkaas uu aqoon u leeyahay iyo khibrad sida dadka loo daaweeyo iyo daawooyinka qaybaha ay u kala baxaan. marka daawada aad soo gadato magaceeda aad qoraysaa, waxaa kuu soo baxaya sawirkeeda, waxaa kuu soo baxaya waxyaabaha scientific evidence-ka, yacni waxa loogu talagalay xanuunada ay daweyso, side effect ay keeni karto, waxyaabahaasoo dhan waad ogaanaysaa. haddii xanuunkaaga iyo daawada isleeyihiin way fiican tahay waad iska cunaysaa. sidoo kale waxaa jira khaladaad dhaco farmashiyaha markaad adiga daawada gadanayso dad baa agtaaga taagan, qofkan waa bini'aadani daawada adiga uu kuu soo qaaday wax kuugu qoray waxaa laga yaabaa midka dhinacaaga taaganba inuu siiyo. marka si aad u ogaato daawadan horta inaad adiga leedahay aad u xaqiijiso waa inaad marka hore iska ogaataa waxa aad gadatay iyo xanuunkaaga inay isleeyihiin. waa arrin khatarteeda leh haddii aad cunto daawo aad xanuunkeeda qabin waxaa kugu dhici kara cudur hor leh. waa inaad iska ogaataa. waxaa jira dad istaalada markay tagaan kaniinka bareesharka la soo siinayo ayagoo markaas laga yaabo inay ka cabanayeen xanuuno kaloo yaryar ah. mid baa waxaad arkaysaa kaniinka neefta wato, koo kale waxaad arkaysaa daawadna xanuun loogu talagalay la siinayo. marka dadkan waa ibni aadan, khaladaadka si uu ku dhaco wuu imaan karaaye adiga wixii aad aragtaba waa inaadan afka u dirin. sidoo kale dadka aad isbarataan ee kugu cusub waxyaabaha iyaga ay kuu sheegaan ha ku qaadanine waa in adigoo ayaga ka madax bannaan aad fikirkaaga wax ku cabirtaa ood baaritaana samaysaa si aad u soo hesho xogtiisa iyo qofka dhabtaha uu yahay. haddaad qof walba aaminto waxay u badan tahay inaad noqoto qof mar walba asaga la dhaawaco. fudaydka badanna wuxuu leeyahay shalaytadana ma wanaagsana ee waa marka horeba inaad ka fiirsi yeelataa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.